Assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my office. Maanta videogeena wuxuu ka hadlayaa red lipstick collection kayga ama lipstickyada midabyada casaanka ah ee aan isticmaalo. Magacaygu waa Aasiya mar labaad kusoo dhawaada. Anigu sidaydaba lipstickyadayda favorite-ka ah ee aan jeclahay waxa weeye kuwa company-ga MAC. Waxaanan aaminsanahay lipstickyada ugu fiican xagga tayada shirkadda MAC ayaa samaysa. Isla markaa waxay midabyada variety inta nooc ee kala duwan ay sameeyaan. Company-ga ugu badan weeyaan wax lipstickyo sameeya 300 oo midab ka badan ayaa mainline-koodu kaliya leeyahay. Aanay ku jirin laynanka kale ay sameeyaan. Marka maasha Allah anigu aad baan u jeclahay. Marka haddaan idinka soo bilaabo MAC kalarada casaanka aan ka haysto oo 6 kalar aad arkaysaan. Anoo idin kala sheegayaa tan u horeysa brown-ka yara xigta waxa weeyaan Diva. Darkaysa magaca Diva waana matte aad bay u qurux badan tahay. maasha Allah qof kasta oo ku soo baxda gaar ahaan dadka midabka maariinka. Kalarkan ku xiga waxa weeyaan Russian red isaguna waxa weeyaan matte magacaan idin soo dhaweeya matte weeyaan aad buu u qurux badan yahay. Blue undertone buu leeyahay. Blue undertone-ka lipstickyada ay ku jiraan badanaaba ilkaha waxay ka dhigaan cadaan qurux badan. waxaa ku xigta iconic Ruby Woo aad bay caan uga tahay company-ga MAC. waa casaan aad u qurux badan qof kastana ku soo baxa iyo midab kasta. finishkiisuna waxa weeyaan retro matte. Russian red-ku waa matte kana retro matte wuu kasii qalalan yahay matte-ka caadiga ah. tanina waxa weeyaan Viva Glam 1 waa line gaara isagu. Viva Glam waxay leeyihiin line u gaara casaankaasay leeyihiin iyo ku containerkoodu. marka maasha Allah isaguna waa midab aad u qurux badan. kan waa midab yara xiga orange waxaa la yidhaahdaa Lady Danger. aad buu qurux badan isaguna waa casaan orange yara xiga. tani waxa weeye line kale oo la yidhaahdo huggable line-ka ay MAC sameeyaan oo saliid midhan weeyaan isagu markaa matte maaha. Flaming lips ayaa la yidhaahdaa wakaa magaciisu. marka maasha Allah MAC intaasaan ka isticmaala anigu aadna u jeclahay. marka waxaan idinku dari lahaa priceska website-ka MAC ayaad ka arki karaysaan. Maraykan wuxuu ka joogaa ilaa adigu ku dhowaan $19 xabadu $19 meelaha maybe 19 iyo badh ama 18 iyo badh adigu aaga weeyaan. Canada iyo Maraykan oo isku dhow yihiin. and then markaad soo fogaatoba price-kii korba u sii kacaya lipstickyada MAC. Europe markaad timaadid laguma iibinayo intii Maraykan lagu iibinayay. adigoo ka iibsanaya store-ka MAC laftigiisa ayaa markaad Europe timaado Ingiriiska kale pound ayaa lagu iibinaya. soo qiimihii wuu isbedelaya korba u yara kacaya. and then markaad soo durugtaa timaado Middle East-ka iyo sida tusaale Dubai way sii kacaya price-ku wuxuu tegayaa ilaa wax 30 ku dhow 20 sare 28 29 marba sarifku sidoo yahay 30 ku dhow. marka anigu kuwan waxaan ka iibsaday MAC-ka ku yaala mall-ka Dubai. marka aniga qaali bay igu yara ahaayeen way meel dhowaan ka iibsaday iyo ku soo fogaaday. Maraykan haddaan ka iibsado aad bay iiga jabnaan lahaayeen. so kuwaygan aniga xabadii $30 ayuu ku dhowdahay. waxaynu usoo wareegnay line kale oo isagana aan aad u jeclahay. line-ka la yidhaahdo Chanel. marka waa brand-ka Chanel. 3 baan ka haystay isaga casaankiisa. finishingskooduna wuu kala duwan yahay. tan haddaan idinka bilaabo waxa weeye Rouge Coco number 446 weeyaan. Ethiopian ayaa magaceeda la yidhaahdo. saliid bay leedahay tani waa iska casaan brown xiga laakiin maasha Allah aad bay u qurux badan tahay. tan waxa weeyaan Rouge Allure Velvet-kii waa matte velvet ah.
number 38 La Fascinante wayaan magaceeduna maasha allah. waliba waxaan kusii jeclay kuwan si qurux badan ayay u xirmaan insha allah aan idin tusi doono mar dhow. waxaa ku xigta number 99 Pirate oo isaguna waa matte, waa Rouge Allure-kii. Rouge Allure-ka laba qaybooda, Rouge Allure iyo Rouge Allure Velvet. Velvet-ku marka waxaad moodaa bottle oo kale inuu ku jiro. iyakuna waa line aad u qaaliya. aniga xabadda kuwaa waxaa laga siiyey $38 $38 xabadii. waayo waa Chanel, marka Chanel alaabtooda aad u tayo fiican tahay. waa ka finally waxaynu u nimi brand ka yara jaban kuwii kale. kuwa kale waa high end brands, kuwan waxa weeyaan Murphy waxaan ka iibsaday anigu website-kooda directly ayaan ka iibsaday. la iisoo shibgareeyay hargeysana laygu keenay. marka way isku iibinayeen setka shanta ah, waa wada matte. Soomaalidu waxay iska jeceliin lipstickska matte-ka ah. packaging-kooda aad buu qurux badan yahay, waana 5 shades oo kala duwan. shadeski markaa midabkii bay ku kala yara duwan yihiin. wasaad arkaysaan kuwan maan isticmaalin, xitaa maan test garaynin, Saudi bay u cusub yihiin. kaas waad arkaysaa casaanka yara brown ku jiro. magaciisa waxaa la yidhaahdaa Murphy. company-ga loogu magac daray ka Murphy baa la yidhaahdaa. kan waxa weeyaan waa pure casaan, casaankii quruxda badnaa. pinku yara jira, laga yaabo fuchsia ku jirto. magaciisuna waxa weeyaan Dominate. saan idinku soo baxee focus waka Dominate. waxay noogu xiga casaan basali, in yaro basaliya ku jirta dhinaca basaligu xiga. magaciisana waxaa la yidhaahdaa Steamy. Steamy. waxay noogu xiga Lover oo ah casaan pure ah. ugu dambeyn waa casaan orange yara xiga. marka la iswada barbar dhigo waad arkaysaan si u kala duwan yihiin. casaan orange yara xiga, magaciisana la yidhaahdo Tease. marka kuwaasi package bay ahayn wada socday. insha allah waan ku dadaalayna xaruntayda haddii laga iibsan karayo dadku u baahan yihiin inay ka heli karayaan. waad ii soo sheegi kartaan insha allah. telephone numberka hoos baan kusoo qorayo, whatsappkayga aad igala soo xiriiri kartaan insha allah. waxaan idinku dadaalaya insha allah swatches inaan idin tuso midabkayadu marka la marsan yahay say u eg yihiin. kan waxa weeye waa Diva. insha allah waxaan rajeynaya inaad arki karaysaan. hoos baan idinku soo yara dejin. waa ka Diva. taasina waxa weeyaan Russian Red and Ruby Woo. Viva Glam 1. Ladybug oo orange xigteeda waad arkaysaa. iyo Flaming Lips. isagu waa khafiif, saliidna wuu leeyahay. insha allah waxaan jeclay waad wada arkaysaan si u kala duwan yihiin. iminkana swatcheskii waxaan idin tusayaa lineka Chanel number 446kii aynu ka bilownay saliidda lahaa. marka isagu waa khafiif, maaha midab aada u dugoon. number 38 La Fascinante oo ah Allure Coco Allure Velvet-kii. Chanel waxay noogu dambeeya Rouge Allure oo isaguna ah matte. iyaguna saasay u eegyihiin, way isku dhow yihiin. qof iyo dooqiisa. kuwan waliba waxay ku qurux badan yihiin say u xidhmaan haddaan idin tuso maasha allah. marka waad riixaysa, waad ka soo saaraysa
masha Allah. kuwan swatcheskooda imika insha Allah ma idin tusay way cusub yihiin marka kuwan insha Allah dad baa soo codsaday marka ma ka taataabanaya insha Allah laakiin kalaradoodu waad aragtaan masha Allah. insha Allah videogan ku xiga isagana hadii Ilaahay ka dhigo wuxuu soo degay adigu dhowr cisho kadib marka insha Allah waad sugaysaan wuxuu ka hadlay isaguna insha Allah aqoon kororsi kale oo ku saabsan makeup-ka insha Allah hadii Ilaahay ka dhigo fadlan subscribe sameeya oo ku soo biira channel-ka saad insha Allah noo taageertaan isla markaana information-kayga ula socotaan belkana jaraskana garaaca saad notification-ka aad u ogaataan markuu video cusub yimaado ama soo dego aad baad u mahadsantihiin. Thank you so much and welcome again to my channel.